munaasabaddan ballaadhan ee uu soo qabanqaabiyey wasiir dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland oo ay ujeedadiisu ahayd sidii taageerayaasha xisbiga kulmiye ee dega gobolada Sanaag Saraar iyo Togdheer ay u muujin lahaayeen sida buuxda ee ay u taageersan yihiin xisbiga xaakimka kulmiye waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye wasiiro xildhibaano iyo madax dhaqameed kala duwan waxa ugu horeynba halka ka hadlay Axmed Baynax wasiir dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland iyo waliba taageerayaashii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxayna halka ka hadlay siyaasiyad Hinda Jaamac Gaani iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan waa kulan aan doonayno inaan xog ku kala qaadano oo ku muujiyaan taageerada iyo midnimada ay midaysan yihiin midna gudoomiye waa soo daashay safar dheer baad ka soo gashay dad fara badan baad maanta socdaalo badan dhaadheer baad soo gashay waad soo hawshootay laakiin waxaan jecelahay kan kulankan muhiimadda iyo xiisaha uu leeyahay inaad ku nasan doonto oo ka nasin doono safarkii dheeraad soo gashay midna gudoomiye beeshani waa beel maanta marxaladan aynu ku jiro midaysan oo inteedii badnayd haday tahay waxgaradkii haday tahay waayeelkii haday tahay dhalinyaradii haday haweenkii tahay midowday tala ku midowday inay taladeeda iyo cududeeda iyo codkeeda isla ka barbar taagaan inay ku midowdo waxad ku tusaya waxay isu keenay halkan wada fadhiya dad xisbiyo aad u soo kala horjeeda oo aad u dagaalama oo siyaasadda aad ugu dagaalama ay midaysay awadana u midowday maanta waxaan ku kalsoonahay nin kasta ha iska wado wax iska sacabtunta ilaa cidina xisbiga waa ayaan rooreen maadaama aanu sidii u midaysanahay diyaar ugu nahay una hogaaminayno waxa jira oo kale dadku hadduu iska bato ilaahay bariyo alxamdulilah rabbil caalamiin baadi ma waayo baadi awashayn ka xadin waxba kama jiraan baadidaasi waxba kama jiraan reerkii waa kan halkii ay tagto gobolada kale diyaar baa leeyahay xisbiga looga yahay diyaar baa loo soo dhaweynayaa waxa uu xisbiyadu isaga yimid isaga soo baxayna waa talo waxaan wada fadhiyaana waa talo waxa dambe ee xagga ugu sii socdaana waa talo kaarka wadooyinkiisa iyo shaqadiisa wixiisina waa loo fadhiyaa waxaan la cadaynaynaa oo ballanqaadaynaa inaanu nahay xisbi xaakimka kulmiye horena aanu ahayn maantana waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dardar u doono geel loogu heeso la yidhaahdo ninna dhuulu kugu dhaadhacay marka geel la waraabinayo wey ninna dhuulu kugu dhaadhacay ninna dhaqashu kugu dhabarjay ama xisbiga kulmiye waa xisbigii dhaqashada inuu yahay waa loogiya waxba yaan la inagu wareerinin waxaan jirin waxa weeyaan hadduu hilibdhab xumo yahay bay tidoo dhuubniyu ka wacan tahay mahdiyow dhadhamada ayo ha u dhowaan inaanato haddii kulmiye uu wadani ka wacan yahay anaa joogi lahaa oo madaxtirintii ka qayb qaatay waxaa kaloo jirta beesha muuse abukor beelahan baryaha dambe meelaha marba ciyaal la taagayo lalahaa waa reer hebel kuma jiraan runtii markaan gobolka xoggaal oo ahay waxaa gabagabadii halka ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Somaliland Cali Mareexaan iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi حسب الحاكم لو هيسلم وهلك جوجا ودولته ay hor dhisantahay warwar male taasiyada warwar male waxa weeye dawladda tiin raakib loo taraqarinka Soomaaliyeed dadkii Suudaanka ku batay siyaasadda Soomaaliland oo asaastay ilaa 45kii Soomaaliyeed dowladda haddana jibada madaxa xasharo dooday haddana hirgelisay Soomaalida siyaasadda u dhigtay waxa la yiraahdo siyaasadda loo dhawaan Mahad Cali Goodir Star TV
burco.